بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، walaalaha qaaliga ah ee ku xiran janalkayga waan idin salaamayaa salaanta islaamka ee aadka u qaalisan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan idin caafimaad qabaa walaalayaal, idinkana waxaan idin rajaynayaa inaad ii caafimaad qabtaan. waa walaashiin aamine cabdiqaadir. janalka aan idinkala hadlayana waa noqo hooyo buuxdo. walaalayaal, janalka kusoo dhawaada, sabskraib noo saara, laagta waa inoo dhiirigelin, hanaga hilmaamina. mowduucana maanta wuu la xiriiraa mowduuc hore noogu soo socday oo ku saabsanaa sidee ku noqon karaa hooyo buuxdo. qeybtiisii 5aad ayaan maanta ka hadlaynaa. hooyo, waxaad ku noqon kartaa hooyo buuxdo in aad adiga is-xijaabto. sideen isku xijaabayaa? waxaad isku xijaabaysaa hooyo, waxaa jiro cadow badan oo xasadka kow yahay. waxaa jirto il nacab, il kalgacal, il xasad, waxaa jira jin. marka hooyo caafimaad qabto ayaa noqon karta hooyo buuxdo. hooyo waxaa lagaaga baahan yahay inaad xirsi xirato, subaxii marka aad soo toosto aad laasimto adkaaru sabaax, galabkii markaad galabaysatana aad laasimto adkaaru sabaax walmasaa. hooyo, ka dhigo gaashaankaaga, ka dhigo difaacaaga, ka dhigo hadduu ilaahay kuu samagol yahay awoodda aad howlahaaga iyo danta aad leedahay aad u mari lahayd si aad u gaarto guushii aad doonaysay oo ahayd hooyo noqo hooyo buuxdo. haddaad akhrisato adkaaru sabaax walmasaa waxaad ka guulaysanaysaa wax walba oo shar oo kugu soo socday ayuu ilaahay kaaga xijaabayaa. maalintaadaasna waxaad ku dhammaysanaysaa si wanaagsan oo farxad leh inaad ku gudato hawshaada. haddaad taqaanid hooyo adkaaru sabaax walmasaa, ha ka tegin oo laasim subax kasto iyo galab kasto. haddaad aqoonina hooyo, hadda baro. haddii aad laasimto adkaaru sabaax walmasaa waxaad heli doontaa deganaansho, huduu iyo howlahaagii oo u socdo sida aad rabtay. waxaa iyadana muhiim ah oo meesha aan ka maqnayn in aad taqaano adkaaru noom. marka aad seexanayso adkaartii aad akhrisan lahayd waa inaad hooyo akhrisataa, waa inaad ahaataa hooyo faajigan, waa inaad ahaataa hooyo hubkeedii iyo difaaceedii gacanta midig ku haysato. marka hooyo, waxaan kugula dardaarmayaa inaad akhrisato adkaaru sabaax walmasaa, habeenkii marka aad seexanaysana aad akhrisato adkaaru noom. haddii aad saa samayso waxaad la kulmi doontaa wax badan oo ku farax geliyo iyo howlahaagii oo si fudud kugu qabsoomo. hooyada aan aqoonin waan kugu baraarujinayaa baro. insha allah cajalkan fiidiyowga ku xigo insha allah waxaan idinkugu soo gudbin doonaa adkaaru sabaax walmasaa iyo adkaaru noom hadduu ilaahay yiraahdo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.